abdi aadan isxaaq waa 6 sano jir naafa ah isaga iyo qoyskiisa waxay ka mid yihiin dadka abaartu ay ku saameysay deegaanada koonfur galbeed waxayna ku nool yihiin duleedka magaalada Baydhabo abdi aadan oo ah wiil maskaxda loogu jiro isla markaana lugaha naafa ka ah waxa gacanta ku haysa ayaydiisa hooyada dhashay abdi aadan isxaaq oo maskaxda loogu jiro Allah u naxariistee waxay ka mid ahayd dad tiro badan oo abaaruhu ay saameeyeen isla markaana ay u geeriyootay cudurka shubanbiyoodka ayeeyada oo hadda gacanta ku haysa canugan yar oo maskaxda loogu jiro isla markaana lugaha naafa ka ah muddo dhowr bilood ay ku qaadatay in magaalada Baydhabo ay la soo gaarto ayeeyo habeenkii ma seexato maalinkiina meel ay ka aadayso ma lahan oo ma ahan ilmo laga tagi karo ilaan waa naafo iyo maskax la'aane bartamihii bishan Abriil ayay ahayd markii aan ku booqanay halka ay ku nool yihiin kadib markii aan ogaanay nolosha dhabta ee ay ku nool yihiin qoyskan oo ka kooban 3 ruux isaga ayaydiisa iyo aabe oo isaguna aan waxba haysan kadib muuqaaladooda ayaan baraha bulshada ku baahinay si ay kaalmo ugu helaan walaalaha Soomaaliyeed Said Ahmed Sharif Hassan oo jooga dalka dibadiisa iyo Maxamed Abdiraxmaan oo Baydhabo jooga ayaa noqday dadkii ugu horeeyay ee gargaar la soo gaara dhibanayaashan ku jira kaamamka ku yaala duleedka magaalada Baydhabo lacago ay ugu talagaleen in nolol maalmeedkooda ay ku maareeyaan iyo waliba dhar ay isticmaalaan iyo sidoo kale joodari ay ku seexdaan ayaana la gaarsiiyay walow baahida dadka naafada ah ay si badan tahay haddana waa bilow iyo dhiirigelin fiican oo lagu dayin karo Ruqiyo Sheekh Abdullaahi oo kamid ah gabdhaha reer Baydhabo ayaa loo soo wakiishay in deeqdii loogu talagalay ay gaarsiiso dhibanayaashan ku nool duleedka magaalada Baydhabo si farxad leh ayayna ugu wareejisay anigu meeleeray magaashay abdi aadan isaaqa leeray kaamka Baydhabo ya ku sugnaay daraadeeytii ay soo xaalado daran ku sugan oo jira oo maskaxda iyo boos iyo hadal laan si iska darsantay markii uu qayladaan iyo uu sameeyay ilaahay ajar iyo xasanaad ku si dad badan walaalay ku qayb qaadeen maybe si wiilka kama nagaane walaalkaana Said Ahmed oo isla markii jawaab degdeg qayladaan uu sameeyay saakibi ما شاء الله جيك إلهي أجر إحسانات السي والألكان سيد أحمد شريف حس يا بيبان كداخي در وفرجوك دره iyo halxab joodare iyo diran sidoo kale meebaan ka deeqayna lacag oo milyan shilin Soomaali ah ilaahay ajar ihsanaad ku si saasoo kale hiraaftan meebaan sameeyay kaamka fiidaamin aan sameeyay marka inkugu mahadnagaana qof leero Maxamed Abdiraxmaan oo Baydhabo roogiya meebaa keen ka deeqay $20 markii saargay unugu dibka ku sugan marka may barajay intii gacan ka jeysatay adina intii adan ma nagta $20,000 oo guddoonta fadhi okay ko qowni magan alla jeesakala hasanta anago Jamiila Yusuf leero anago maskaxda la ka jara la fa'a wada dhibaataysan anta waalaysan dhibaataysan hasanta jeesakala ariki walin arbi mahadasinka hayna dhibaatadii una qabni ilaahay noo biyayno biiden alxamdulillah shukri lillah mahadasinka hayna meegan alla jeesakala hasanta eedan mahadsanyin mahadasinka hayna unuba farahanay alxamdulillah Allah